Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa galabta safar shaqo ugu ambabaxay dalka Turkiga waxaana garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho kusii sagootiyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha aadan cadde ee caasimadda dalka ayuuna kula hadlay warbaahinta waxaana uu ugu mahadceliyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka doorkii wacnaa oo ay ka qaateen qabsoomidda shirkii hore ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Galmudug in shirka la filayo 15 Agoost bishan aan ku guda jirno 2022 loogu soo qayb galo isaga oo u rajeeyay in uu ka soo baxo wax ay ku farxaan ummadda Soomaaliyeed. Waa safarkii ugu horeeyay ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ugu ambabaxo meel ka baxsan gudaha dalkeena Soomaaliya. 2 Febraayo ee sanadan aan ku guda jirno 2020 ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha Galmudug. Tan iyo intuu xilka qabtay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayuu wuxuu safaro shaqo ku tagay degmooyin iyo deegaano ka tirsan maamulka Galmudug kaas oo ugu kurgalaya xaaladda dhabta waxaana uu gaaray goobo horey ay u ragaadiyeen colaad beeleedyo dhiig fara badan oo ku daatay islamarkaana uu ka soo hooyay xal ummadda halkaasi ku sugan oo isku keenay.